الحمد لله سدا walaalkeen baa inoo sheegay waxa inaga muuqda diin jacayl khayr jacayl masaajid jacayl waana nicmo weyn oo Ilaahayna siiyay Ilaahayna nagu mahdina weeyaan dad badan fadhiga masjidka ma karayaan إلهي جل وعلا وحينا جعليسية إن المساجد فريسنو والمساجد كو اعتكافنو وإن إلهي هذا الكيس أن قدرنو ما شخص وحدو تمادين وإلهي كلام كيس وإلهي الدين تيسين المقلو إن إلهي كلام كيس مقلو ودين تينا معانا إلهي نسية يعني اسكو برارو جنو waayo waa Luqman al-Hakim baa lagu yiri diintan iyo xigmadan halkeed ka heshay baa lagu yiri Luqman waa kila kaga waran qisadiisa fi suuratu Luqman wuxuu majlisna aniga fadhiista oo waxbaan ka qaataa majliska halana ana la fadhiisto waxbaan siiyaa buu yani majliskan aniga fadhiisanayo waxbaan ka dhageysan وكبرن وكفائديسن مجلس كان اسلاده ودانتان انت الله فريستن وخي ان كدامان u sheegay sidaas ay marka xigmadan Ilaahay ugu siiyay nin xakiim abu ha xigmadiisa waxa kamida dardarankii ilmihiisa uu siiyay waa ka Ilaahay quraanka inoogu sheegay sida uu badkiisa u tarbiyadeynay marka majalistan iimaaniga ee cilmiga مساجد dhexdeeda inooga socda khayr badan ma ka faa'iideysanayna diinteena macaan ban isku baraarujinayna mar walba la isku nasteexayo oo la isbaraarujiyo oo caamadii culimadu cilaaqo wada yeeshaan oo mujtamaca muslimiinta masaajid ay ku xidhnaadaan waatan ku gaarayna horumar iyo midnimo weeyaan sidaa darteed buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yiri diintu waa nasiixo ayana nasiixo tahay baa nabiga lagu yiri ilaahay sidee buu adoonku ugu nasiixaynayaa markaad ilaahay jalla wa ala aad garatid ee aad caabudid ee cibaadadii ilaahay aad u baraxtirtid ee dariiqadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad ilaahay ku caabudo ilaahay waad u nasiixaysaa كتابك إلهي جل وعلا سيد ugu naseexayn say diintu kitaabka naseexa ugu tahay marka quraanka Ilaahay la barto ee la akhriyo ee la tadabburo aayadkiisa ee quraanka Ilaahay jalla wa ala marka la akhrisanay laga fikiro ee wixii quraanku macruuf ku farana Allah timaadid wixii munkar quraanku ka reebana aad ka reebtoonaatid wixii quraanku xalilena aad xalaashatid wixii quraanku xarimena aad xaraan u aragtid القرآن كإلهي برتود ومدى آد برتد سيدي لو فيدين لها لو بري لها لو قدغم لها لسكو حكم لها آد كشق يسد نعم كتاب إلهي وضم نصلي حيسد رسول كيسا محمد عليه الصلاة والسلام سيدو نصلي حين سا رسول كإلهي هذا رسول كيسا آد يعدد ووحي وناقي النبي كفرين التي مادد وحي منكر يبدع يا خرافات يا شركية لنا أتكرب توناتد وأظن أصلحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأتي النبي إنه جعل إنه مرول بأمدي سكاركم وحب النبي جعل إنه أركو أمدي سو إلهي عابد إيسا أمدي سو إلهي بري إيسا أمدي سو إلهي الرجين إيسا أمدى أسعة سيد إلهي والربي مركو أرك النبي وفرح جري عليه الصلاة والسلام كأئمة المسلمين تسيدوا قلنا استيحين إيسا هذا طاعة الله قاهل والسمع والطاعة لأولي الأمر intaanad ku arkin wax sharciga Ilaahay jalla wa ala ay kaga baxayaan oo du sabirto oo du ducayso oo wixii macruuf aad ku adeecdo oo du nasteexayso caamada muslimiinta saad ugu nasteexaynaysa haddaan quraanka Ilaahay soo dejiyo diinta naseexada diinu nasiixa buu nabigu yiri waa jawaami'ul kalim diintu waxay naseexa caamada ugu tahay waxa weeyaan markaad xaq Ilaahay aad garatid
حقوق بني آدم كان أدسك إلى لسد إحسان لغا هلو دادك دبعد وناسنات كلا دغنتد وناك أدو سميسد دبتي كوغي سنة أنا أدسك عفدد كيكو وناجينا وحو نبي يقول كيكو حمايانا وناجي كيكو ظلميانا اسك عفب ونبي يقولي كوحي سكا حرمنا وحاق السي كما ركتاني حمان كوغو سمايانا أدو وناقو سمايا دين تاس دين تينا إسلامك لقبل أبا إلهي حقوق ديسي إلى خلقك إلهي كوغل أبو رأي كل الدقن حقوق دين تكون شيئا سعدات كل دقنتو نرشا دي أدوية واحد كسميسة جنة أدوية كون غنيسة جنة إمام غزالي رحمة الله عليها يا أورنجري جنة أدوية وإلهي معرفة ديسة جنة آخرتنا وإلهي أركت ديسة جنة أدوية سرت النولش دتكم ما أنت أي رادين أيان قار لعق بكر رادين أيان قار أقوم بكر رادين أيان قار غلا يكر رادين أيان قار مصب بكر رادين أيان قار لوف بكر رادين أيان سرت النولش وحيكون شيئا علماء الربانيين تاهيد جنة أدوية وإلهي معرفة ديسة وأنا قرأتها إلهي قرأ قرأشدات قرأنا يا إلهي قرأشدي نبي محمد يا صحابة الله أي قرتين وأنا قرأشدها سأيام معيار المعرفة إلهي معرفة دي معيارك الله دون ومدو إني قادو وإيمانك نبي محمد إلهي قلبي سأور دقي إيمانك صحابة نبي أي كقاتين تاسا معيار المعرفة اللي معيار الإيمان والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إنه صحابة إيمان كوغو هلك إلا دوني إنه قاري قرآنك إلهي كشيغي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلهي قلبي وغوحو لقي كلمة التقوى ابن عباس وحيري وكلمة التوحيد ويان كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها بإلهي إنا كلمة إيمانك إخلاصك qalbigooga inaan ku galladaysannoon qalbigooga dhignana baa ilaahay yidhi ehel bay u haayeenoo xaqna way u lahaayeen wayna u qalmeen baa ilaahay yidhi وإذا قيل لهم الناس آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيدا كواس إلهي أرميين marka u rumeeyeen la yiraahdo baa ilaahay sida kuwaas ilaahay u garteen ilaahay u garta kuwa mithaalka loo soo qaadanayo waa asxaabtii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam marka xuquuqda ilaahay nagu leeyahay xaq ugu horeeya waa maxay waa ilaahay macrifadiisa jannada adduunyaduna waa ilaahay garo jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa oo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waa kii ku yiri markay muuminiintu ay jannada ay galaan ayaa ilaahay jalla wa ala ku oran doona turiiduna shay'an azidukum marabtan maaragtaan waxaan jannadan ahayn oo inaga maqan oo inigu daro markaas muuminiintii jannada la geliyo oranayaan alam tubayyid wujuhana ya rabbi miyana wajiyalkayga noo iftiimin wa tunajjina min an-nar naartaadina miyana naga badbaadin oo naga ilaalin wa tudkhilna al-janna jannadaadina miyana nasiinin ma wax ka maqan intaas oo ka baxsan oo nicmadan ka weyn baa haray markaas la oran doona ha fayakshifu al-hijab dadna markaas ilaahay kashfiga ilaahay iska qaadaya hijabka fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadar ila rabbihim bu nabigu yiri ahla al-jannah lamasinin waxadooga looga kalgacayl badan yahay ilaahay tabaaraka wa ta'ala jamaalkiisa iyo kamalkiisa daawashadiisa jannadii dhanay bay halmaamayaan jannadii bay iloobayaan naciimtii jannada ay halmaamayaan marka ilaahay wajigiisa iyo daatadiisa iyo quruxdiisa iyo kamalkiisa markay arkaan lidalika culamadii rabbaniyiintu waxay yiraahdeen war adduunyada ninkii janno doonayo waa ilaahay garo garashada Soomaalidu ilaahay ay taqaano ma hata la doonayo waa garashadii saxaabadu ay ilaahay u yaqaaneen Soomaalidu ilaahay waa naqaanaa koodan laakiin miskiidka markuu ka baxo waxa uu doonus kaga hadlay dadkeena maanta waxaad moodaa miskiidka markay soo galaan in la yiraahdo muslim baa tahay dibadda markuu u baxana waxaad moodaa halku kabaha ku gashanayo ayuu diintiisina ku reebaa war masaajidka markaad soo gasho si aad ilaahay uga baqayso ee muslimiinta u salaamayso ee muslimiinta u ixtiraamayso ee dadka aad ugu naxariisanayso ee miskiidka xaqiisa aad u ilaalinaysid ee laba miskiidka dhexdeeda adduunyo kaga sheekaysan hadaad aragto aad u leedahay war meesha waa miskiid ilaahay ka xishooda soo ma nidhaahdo bad miskiidka wax ku iibinaya hadii la arkana waxa leeyahay war meesha waa miskiid dibadda ula baa waxaad iibinaysid
qof baahan haddii masjidka laga arkana waan u naxariisanaynaa diinta masaajidka dhexdeeda aad ku haysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda aad ula baxdo diinta ilaahay naga doonayo ee ilaahay aad ugu nasteexayn ee nabi maxamed aad ugu nasteexayn ee aimada muslimiinta ugu nasteexayn waxa weeyaan waa diinta markaad masjidka soo gasho aad danaynaysid ee jeceshahay ee quraanka akhrisanaysid ee ducaysanaysid ee muslimiinta ixtiraamaysid ee culimada si fiican aad u salaamaysid ee culimada aad wax ka dhageysanaysid ee masjidka miskiin markaad ku aragtana aad ugu naxariisanaysid ee masjidka dadka aad ku ixtiraamaysid diintaas la rabaa inaad dibadda ula baxdo ma aha sheekada dibadda taala masjidka la soo gale bal waxa la doonayaa diinta masaajida inoo taala inaan dibadda ula baxno dibadda ku muujinaa la inaga doonayaa masaajidka ayaa la magaaladana hada huwa sida aad u leedahay masjidkan ilaahay baa leh markaad iman dhar fiican baad u soo qaadan waa soo tahaaro qaadan kabahaaga meel fiican baad dhigan dadkana waad salaami si adaab iyo ixtiraam la masjidka ku soo gali waa ducaysan oo baahidaada ilaahay baad u sheegan nin taajira ayaa masjidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisiina markuu tagana waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjidkee buu ku tukadaayo masjidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xidhan moogtahay oo ilaahay cilaaqo la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhinacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataaye maxaad gacmaha la taagtaagi manakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu yidhi ya allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay lidaalika masaajidka diinta aad ku dhaxaysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda ula baxdo ood garataa sidaad masaajidkan aad ugaga cabsanaysay ilaahay aad ugu dhex baryaysay eed bini aadamka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa maskiida dibadda ula baxaad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaadid ilaahay bay arkaayo ilaahay bay maqlaaya yaa arkaayo ilaahay laa tudrikuhu al-absaar wa huwa yudriku al-absaar wa huwa al-latiif al-khabiir khalqigiisa meel kastay joogaan ka u jeeday arkaya waa ilaahay haba ilaahay kama qarsoon يعلم سر وأخفى وحلابت هذا كجرة وأبيه walaalkay adiga sirtayna dhaxmartay ilaahay waa ogyahay Safwan bin Umayyah ayaa Umar bin Wahab ninka la oran jiray ayagoo marka labadooduba mushrikiina oo Makka ay joogaan waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wassalaam waqcadii dagaalkii Badar baa laga soo noqday 7 gaaladana waa laga laayay 7 gaala ana nabigu waa qafasho u xiro u qaatay labadanna waa qaraabo Umar bin Wahab inankiisii wuxuu ku jira 7 kala xiray Madiina loo qaatay buu ku jira xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaas ay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri haddaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay
iyo guusha maxamed maanta uu naga helay tu aanu adkaysan karna maahine sumcadii quraysheed buu dilay haddaan heli lahaa maanta dayn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaalo qaad haddaan heli lahaa magaalada madiina intoon tago xeeladaan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankaygiiba iga xidhan oo itu sabaan odhan lahaaye maxamed aniga soo khaarijin lahaa buu yidhi safwaan bin umayya ayaa ka faa'iideysto yidhi ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan daynka lagugu leeyahay aniga halay soo raaca buu ka yidhi waa labadoodoo keliya makii madiina masaafada u dhaxaysana waad taqaanaan la 400 kilometer uu soo socday aalaadkan zamankan imika isku turtuurayna Facebook iyo WhatsApp iyo balaayajin ma jirin zamankaas uu soo socday madiinu soo galay Umar bin Wahab isagoo seeftiisa jeeni qaaran mar ali markuu Umar bin Khattab baa yiri wa Umar bin Wahab ha shaytaanu min shayatiin Quraysh weeyaane seeftiina waa ka jeeni qaaran ee qoorta ku sitee ordo nabiga ilaaliya buu nabiga noo ag joogo nabiga ka ilaaliya sallallahu alayhi wasallam shar uu buu socday khayr uma socdeen markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yiri nabi allah Umar bin Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa buu nabigu yiri soo galiya loo soo galiyay xaadu timidee buu ka yidhi waxaanu imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameysaan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa buu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidataa maxay tahay hadda wuxuu qabbaha allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii badar iyadoo tan wadano Saudi-ga 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa buu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fadhiistay adigiyo Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fadhiisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri haddaan heli lahaa daynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aanu dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa madiina intoon tagaan maxamed aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna daynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabuu ahaaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga warramay allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtana ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaada in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma gacantaas ka haysan bas ilaahay isaga ka taliya ku tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab امرأة أبي لهب أيها النبي أن أوتمد عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بأوتمد وهل كان فرديا رسولنا واقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى هاي أبو بكر هو صاحبك ما نوم إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كواي ستاموكت
أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري رجع حيسا نستوى مضحا بشخص لها بيتري مركز كان نقطبه أبو بكر نبي ساوي يا رسول الله ما هناك أركين ما أنا جا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنه هيبل محو حكوا أركا إيش وحكوا أركا من لنا هاي ما يأمر كله وحكوا أركا دكتور وحكوا مغلا ما دكتور أمر كله هو بانتاين مقاشو لوك تادو إنه سعوت إله أمر كيسه وبانتا خالق وإله بركة إله معرفة سوى واجب قف كسر مسلم على قرب إله ونبو قرته تصرفات كعالم كله بس كله بركة الشيء وجوه الرجال بني آدم كان له واجب وإله معرفة ديسا دينتنا النصيحة دي هذا الكاس يكبل عبادة لله كن عبدا لله إلهي أدون كيسي ونبى النقو خلاصة القرآن مركز علماء كور رمين خلاصة الأديان وحلي وحي الدين سماده كسو دغتay oo dhan khulaasadii waxa laga dhigay quraanka kariimka quraanka kariimkii baa la soo khulaaseeyay suuratul faatiha khulaasadii quraanka laga dhigay suuratul faatiha ayaa la khulaaseeyay labada aayadood bay culimadu isku keeneen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in خلاص qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi ilaahi jalla wa ala wa ka quraanka kulaha salaada waanu qaybiyay anigii adoonka ayaa kala qaybsanay oo salaadu وسورة الفاتحة مقعيقة ويان سورة الفاتحة صلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة 7 المثاني بالليلة سورة داس وسورة النبي يقولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسودقين فرقان لكم توراة لكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدة كم جرتب رسولك يري علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردم بمركان يغني وحاو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي يدنا كسو أرتي إياك نعبد وإياك نستعين وأمركم أضنك أوليه بسم الله الرحمن الرحيم مركا ترادد الحمد لله رب العالمين مركو أضنك يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضنك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركا ترادنا أثنى علي عبدي إلهي بالأضنك يجيب أماني مالك يوم الدين مركا ترادنا مجدني عبدي أضنك يجيب وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركا ترادنا إلهي بال هذا بيني وبين عبدي تاسياني أضنك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركا تري حمدني عبدي إلهي بال أضنك يجيب حمدي الرحمن الرحيم مركا ترادنا الرحمن والله الرحمة ديسو أدونك أنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدين ويان الرحيم أن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدق ويان أثنى علي عبدي أدونك وي أماني بإلهي لي هي مالك يوم الدين مركات رادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يطلد إسكالها يوم مركات رادنا وحو إلهي لي هي مجدني عبدي أدونك وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركات رادنا إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقد حيسا وهجاج أديكون أي عبد أو أدونك يجي نبأين نقو أنا جنا كلمة هاي جرجار كاجي يقودا سدان دونا ييل سدان دونا سن أنا كويلي سرت نلا سؤال كابي كجرتا ضوف هكر رادين قحوتي هكر رادين هي الله شقة تجنا هكر رادين ودنا كنا وقول شقة في عنواكه وكهيد وشقة تجنا هيد بوه بالله شقية هيد ودقي إسلامتي هبلاي هي لا بدو دي الجامعات قلن جبيون وهيد بأمر كيف مدح قادت مدح وريه هيد وكقادت يا مسكين يا مسكين عبد الله بن حذافة رضي الله عنه مركي بقر كيرو مصوحري وحلو بندق لبشي إن بقرتوية الروم تعالى كلبات للسيو أو دين الإسلام كأوكبه صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ليسي أرضي كمدا
hanaga dilin nasraaniyada u bandhig wax li wuxuu diinta ku doorsan karana hal siiyo si nasaarada islaamka ugu socota usadun an sabilillah ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nabi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaallo iimaankoogu qalbigu dul yaalla halku dul yaalla qalbiga wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha iimaanka saxaabadu ma aha mid carabka dul yaalla mid ma adiyo la dhaafsan kara ma aha waa mid qalbigooga iimaanku fariistay weeyaan ilaahay ku tacalluqsan oo yeedha boqorkii ma kula tahay inaad nasraaniyada soo gali boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siinay markaas uu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhameystiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato haddii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelayn buu kaydi wallahi ma facaltu buu طرفة عين دين الإسلام كبحوا اسكا نقو waxa soo mulkiina qaado ma yeelayo buu boqorkii baa ku yiri dawaan ku dilayna dawaaba nin xidhanahay buu haday dilaysan waa nin xidhanahay dhexda alxusnayn bay sugayaan iyaku imma an-nasr wa imma ash-shahada imma inay guul helaan oo tamkiinay helaan oo ilaahay gargaarkiisa loo ballan qaado indhahooga ku arkaan imma inay shahaado helaan ee firdaws ay tagaan loo shahaadiyad waxba uma arkaan waxa la sameeyay marka boqorkii amar wuxuu ku bixiyay dariyo waaweyn oo saliid oo karkaraya ay hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqonay nabi yiraahdeen markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka waran subhanallah sagiba marka la dul keenay oo xidhan kan noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo hay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxal loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaas ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba inta mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoon haysano ka ooyaya buu kaydi afkaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka inta la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kaydi boqorkii baa yiri kan dilgiis waxa noo tari maaye haska sii deyno waayay sii daaya ma kula tahay buu kaydi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii deyne markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada sagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu hadii muslimiinta ila xidhan aadii sii deynaysid haa waan ka dhunkan hadii kala ka dhunkan maayo buu ku yiri markaas uu waxa iga dhunko markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nabi maxamed kamida رجعه ويسيدين يا صومه هنا وكذا اللي بريبه جهاد بنقصوا علينا كلا بحنا هنا عجيب أصحاب الرسول رئيس وقالن عمر بن الخطاب صود ويي إنه قال ماذا حكى صود كذا أيا وش جايب على يلو رجع الله السعودية عمر كويري عبد الله بن حذافة هدون كانوا هالسلام إنه هالصود وين وايو قال ماذا حكى صود كذا إنك أنا هبل دبده وبحي هبل هي دبده وبحي هبل هي يطبل شغايايو اسكو توستي قال إن هذاك لا شقيسو أيا ما أنت مسلمين تهرمروا أركان قال هذا دلكوجا إن تجنو أيا ما أنت مسلمين تهرمروا أركان إياكونا رجل الله سودا يدون كشدا لوجو سودا يبع عمر كله قال بماذا حكى صور كذا سلام عمر بايد بلوك هذه هو رئيسته سيدا يكون عادي إن هذا قال ماذا حكى دون كذا وعليك أكو سودا يبيدي سمرك عقدة دي يريد قلبك أوجش عمر وقبي يبيدي حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك بيدي قف
kasta oo muslima waxa xaq ku abuuri Umar in maaragtana Abdullah ibn Hudhafa oo madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buuri anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addooma waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonayay markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay sida doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladina aamanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي الذين آمنوا كو إلهي رميي قلوب تودو طاعد إلهي ذكر إلهي أي كو حصل يسو إلهي بعد ألا انتبهوا إلهي بعد إنه نصلحين يا إلهي بعد إنه يريا إلهي بعد إنه خير ميريا ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا ومن أصدق من الله قيلا إلهي بعد كو ورما يأكله warqalbigii naasi wax kala ku xasil maayo aniga macrifadadu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaysta qalbigu quraanku ku raaxaysta qalbigu dhikriga ilaahay buu ku raaxaysta qalbigu taacada ilaahay buu ku raaxaysta naam nina aymada muslimiinta kamida ayaa oran jiray khamsun min dawaa'i alqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawat alqur'ani bitadabbur quraanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaam al-layl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa taala la hor joogsado wa tadarru inda as-sahar iyo waqti as-sahar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wa ala lana munaajodo wa khala'u al-badn iyo calooshaada mar walba badnaata wa kathratu as-siyam bi culmadu leeyahay inuu qofku soonkiisu bato wa mujalasatu as-salihin dadka war wanaagsano la fariisto shantaas ay culmadu raadeen qalbiga dawaysa تلاوة القرآن بالتدبر لكن القرآن ما شاء الله ونسك آخرين تدبر كيف نجمع أصحاب الرسول رضي الله عنهم لقى يا أبا هل آية القرآن سده بينك أقول علينا يا أبو برياي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سفيان الثوري رحمه الله آية القرآن كهبينك مركو صلاة الليل كي حد مركو قاري وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعيسى إلهي كملينين أي كلا كل ما بنك قيامه هدو لها خير بان وطا ما خير قيسي ماها أرنتو يكوين تاي صلاة بان وطا صلاة دوال لقبت بهذا لا شك لكن مؤمنكو هلك أمركو بنك قيامه إلهي هرجو اقصدو صلاة دي الصون قيسي ايقي مايه إلهي الرحمة دي صوبو ما انت ايقا يغفك مؤمنكو إلهي الرحمة دادون بوليه آيات القرآن كواغو غبريه أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركو نبي أنه حنون صدو حنون كلا دعي أي نبي قال له يري صلاة دي بتاعك النبي الله مركاسو النبي قال أبو بكر وشيء ومدى صلاة هكب حيه عائشة رضي الله عنها وأبتغني النبي آية كتري إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر وأن قلب جلع سويان إذا قرأ القرآن غلبه البكاء هدو قرآن كأخرينا وهنتي سآيا قرآن كغالب نقطة وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسكيد كي النبي الصوق علي وعوارك إنا ير وصورة الطور كنت كان قيام الليل كي قرآن كي سيبو دقيستي مرقو قاد ير كي يرى إن عذاب ربك لواقع عذابك ربك وكيد عدون ويان آيات عمر مرقو قادينا دولكو كود عمر بن الخطاب انتو الله قادي آيات قرقي سيل لقيي بلكو دبو حنون سنة حنون قيس ميشو كي مدين لما أقيم مقداد رضي الله عنه صحابي لو رجل مقداد بن الأسود هبينكي مركو حاسكي سأكسر حضبي تري سداسو أقل قلنجرة سداسو هبينكو أقل قلنجرة سداس مرقاسي كتر ورمحالة قال قلن مات بكتا مات سيحتي دا مرقاسي ورنجرة عبسدا حصوصت أنا حصوصنا ينار تجهنم أيا هرددي الراحة ديقا قادب ورنجري يخافون قرآن كي آخرين يكو لكن تدبر بيكو آخرين تفكر بيكو آخرين laga yaaba hal aayad oo quraana habeenkaadhan inuu ku soo jeeday nabigeenu kaleey salaatu wassalaam waa kii abi bilaal ba u yimid salaadii markay gaadhay ya rasuulullah salaadii ba laga sugaya waa nabigu lilmada ka daadatay maalintaas garkiisi intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wajiga uu dhulka ku hayeen way qoysay markaasuu nabigu ku yiri ya bilaal
حليت ولا آياتها القرآن كيقول صدقي ويل لمن قرأها ولم يتفكر إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحلي يقول صدقي بالنبي يقولي نك آياتها أخريا إن أنت تدبرون أن تفكرين كاسو خسارة ورسولك يقولي تدبر صدح عمل markaad hayso hadaad qalbigaaga khushuucad ka weyday bay culimadu raadeen qalbigaagaasi uu dhisay heerooda soo dhaweeyay quraanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid hadii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaaye qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilaahay alla urtagin قيام الليل وسماء الصالحين إن هبين كي لك الله ينسي كل جن كي كهلا بدس كي صفات ونكس النجارة الله لين نسوي سدين يا مي هذا الكانوا حنوجه الله يا إني أنا نقول شيء ما دين بندونا يا إيمانك وحنوجه الله إيمانك إنه يزيد دونا يا صلاة وحنوجه الله يا صلاة حقيقة إلهي نسيان دونا يا صفاتك ونكس وحنوجه الله يا صفاتك إلهي نسيان دونا يا والله وما فريس دينا وعدي أنا وأنا لك أفرس نفسي دينا وعدي قيام الليل حسن البصري رحمه الله نن أسمر أبوها ولكن وجهي سنور كبحايو مركز سألقول يا شيخ يا أبا سعيد بالقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد واسدي بالقول دتك واتكن نور وينتهي وعلى ساعدها أي هردان أيان إله إلا مناجود أبو لانكم مضونا سوجي يقولون النور ها ساعدها دتك أي هردان كعو ولو لا برك على النقطة لا برك عتكو ولو ركعت وتر إذا أنا كنت ضروري وتر هذا دبور دقو مركز شرفاء الناس دتك مال قبيل ذا يدتك مدح ذا يدتك تجارته أي دلين هي وجهاء الناس بمجرى مجلس كيسة وعلى قول يا حسن يا أيها الإمام dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yiri madaxda oo dhan baa ku imanaysa wuxuu yiri waxay haystaan ma ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yiri waxay haystaan baan macna adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradan u jeestay diintan u jeestay jannadaan u diyaar garoobaya naar baan ka cabsanaya ilaahay xaqiisa u dhaqaaqay marka waxay haystaan markaan faraha uga qaaday waxaan haystaan iyaga u baahday buu والتضرع عند السحر مؤمنك waxa laga rabaa habeenkii saacadaha waqti saxarka ana ilaahay la munaajaat ما حي مناجات يا الله الباب كست وحرمايه الباب كغفر إلهه نحرست هذا نبهنا وساعدها إلهي جل وعلا ونبي يقول شيء السماء الدنيا ويمادا نزولا كما يليق بجلاله مركز إلهي أرنا يا وحيد سنة يا هنسية آيات توبت جنا توبت دهان كأقبله آيات دم داف دون دم بيجي سهل دافع هذا ساعدها كأنا كورم إلهي برينو صباحي ملهين ساعدها مناجات هبين أيو النبي صلى الله عليه وسلم مركو قيام كيو بلابي أيو النبي قال لبا آيادود أو كليا سدو وعل علينا أيو وقود الله رسولك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم لبدا آيادود آياتنا waxay ku jirtaa suuratul maa'ida awaakhir keega آياتنا waxay ku jirtaa suuratu ibraahim laba nabiy ulul azmiya hadalka banka qiyaama ay ku orani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa taala ayu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nabiyullaahi ciisa alayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isagii hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isagii hooyadii qaarkood
ilaahay ay ka dhigteen ee caabudayeen ayaa banka qiyaama la keeni deedna waa ka ilaahay weydiini doona orani doona yaa ciisa ibna maryama a anta qulta linnaas ittakhiduni wa ummi ilaahayni min duuni illah nabi ciisa yaa ciisa xataa yaa nabiy allah la oran maayo yaa rasuulullah la oran maayo yaa ruuxullah la oran maayo ciisa ibna maryama war yaa ciisa ina maryama baa la oran doona maada ku yiri reer bani israa'iil aniga iyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigto naabuda maada ku soo yiri qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بنكا قيام النبي عيسى اسكب بري يا أولياء مي إله حمان ذيك كهوفا كما أورنا نقول أمر كي أدي ديبتو من نقول قرسي إيه أها ربي جاي إيه ربي جون والله إلهي أنا ولا عبدنا لكن يا ربي وحن كل شيء يا intaan adduunyada joogayna marag baad iga ahayd oo adaa ila joogay oo i arkayo i maqlaayay oo waxaan ku lahaa maqlaayay oo waxa igu sameeyeen u jeeday laakiin markii adduunyada adiga soo qaadayna adigaad maaragtaan arkayay ee hadaad cadaabaysana waa adoomahaaga hadaad u naxariisanaysana amarka adiga iska leh ereyga nabi ciisa banka qiyaama uu oran doono ayuu nabigeena muhammad alayhi salatu wasalaam ku saliya rasuulkeena ayuu nabigeena muhammad alayhi salatu wasalaam naxariisu ummadiisa u naxariisanayo damqashu nabigu ummadiisa u damqanayo erayadaas nabigu habeen ku soo celinay habeen dhan oo laha ya rabbi hadaad cadaabaysana waa adoomahaaga yaani quraysh maanto dhammaan quraysh ku jawlaynayay mid baan u ziyaaranayay majaalistoodan ugu tagayay fagaaraha ayaa kala hadlayay waan kulmiyay waan u bandhigay risaaladaadii waxay igu yiraahdeen waad arkayso waad maqlaysay hadaad cadaabaysana waa adoomahaaga hadaad u naxariisanaysana amarka adiga iska leh ereyga nabi ciisa banka qiyaama uu oran doono ayuu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas wa ibrahim alayhi salam ayaa isaguna yiri ya rabbi asnaamtani adoomahaaga in badan bay lumiyeen xaqi ka weeciyeen faman tabi'ani fa innahu minni kaaniga iraaca ee aqeedadayda iyo diintayda iyo milladayda igu raacana ilaahu waa macayge aniga ka ilayel waman asani fa innaka ghafurur rahim ka ay caasiy amarkayga diidana dhaafe naxariis badan baa tahay buu ka yiri ibrahim alayhi salam aayadaas nabigu ku celceliyay ilaahay jibriil soo diru yiraahdo ya jibriil utag muhammad alayhi salatu wassalam adoonkayga muhammad utag waxaad ku tiraahdaa war rabbiga uu og yahay maxaa la ooyaysaa markaasuu nabigu yaa jibriil ummati ya jibriil ummadaydi bal fiirs tadarruc waa kaas faaduma uma ooyayo safiya uma ooyayo awlaadiisa uma ooyayo aisha uu dadka ugu jeclaa uma ooyayo abu bakr oo asxaabta ugu jeclaana kaligi uma ooyaaye rasuulku wuxuu ooyaa ummadiisa oo dhan ya jibriil ummati wa ummadiisa waayo min maalintii nabigeena la soo saaray alayhi salatu wasalaam ila qiyaamaha qof ali qofka adduunka imanayo dhan wa ummadii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wa ummadii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wa ummatul ijaba wa ummatud da'wa muslim kuna wa ummatul ijaba مسلم وأمة الإجابة قالوا نوا أمة الدعوة أمتي دعوة لا جارسين لها وقال هذا ما أنت نقول عيارس سيدا كبده نقول عيارس أن نكون أنو هاي سنو إني وحيستان إني الليبانين إني الراحيسانيان إني أوجا ديبادو هايستا مي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون قرآنك إلهي كل شيء قرآنك ما هيستان راحو هرومر ما هيستان راحة دي أدقى هيستان أمني أدقى هيستان أرزاق دي حلاش أدقى هيستان النما دي أدقى هيستان
diintii xishoodka iyo kala dambaynta ku baraysay adigaa haysta diinta xaqa ilaahay kuu sheegaysa xaqa waalidka kuu sheegaysa xaqa jaarka kuu sheegaysa xaqa islaantaada kuu sheegaysa xaqa ilmahaaga kuu sheegaysa xaqa saaxiibkaaga kuu sheegaysa diintii cadaaladda iyo kala dambaynta iyo iska warhaynta ku dhisnayd adigaa haysta adigii naxariista la raba inaad noqotidna waad indha sarcado waa lagu sixray waxaad leedahay iyo kaa wax haysta taasuu leeyahay muslimkii maanta midbaa xashkay u sii socday midba xashku tagayay war adiga xashka u sii socday ducaan kuu guntanaya carafay ku xasuusa buu yidhi waa qiso dhacday haye maxaa kuugu duceeyaa caruurtii laba jaamacadii way ka baxday shaqay heleen laba iskooladii ku dhacday oo fiisa dibadaan u xereeye ilaahay kuwaana inuu fiisaha u dhib yaree dhoofaan igu soo duceey buu yidhi carafo ka soo duceey qalbigeenni halkuu jira ummadii la doonayay ummadda inay u naxariisatay u damqato ayaa wala indhaheenni wastarhabuuhum wajaa'uu bisixrin cadiim walana sixray waxaana gacmaha ku sina laynagu sixray mobilka facebook baa lagugu sixray balaayooyinkan caalamka maanta lagu shaydhiyey ee ummadii oo dhan oday iyo islaan iyo inan iyo ilmo yar cuquusheenni iyo qalbigeennii qaatay ayaa ummadii maanta waxaaba laynagu sixray bal dad aqal wada galaya oo iska warhay ka warrama oo wada tashanay oo iswaraysanay baa lagu sixray halkii la doonaya inaad adigu naxariis noqoto nabigeenna sal alla alay wasalam tadarruciisu wuxuu ahaa yaa rabbi ummatii ummatii yaa rabbi ummatii jibriil calayhi salaam ayaa ilaahay soo diru ku yidhi yaa muxamed wuxuu rabbilciza kugu yidhi innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuuka innaa annaku sanurdiika fii ummatika ummadaada waa kaa raallin gelin doonaa insha allah waxaad ku raalli noqoto ayaan ummadaada ka yeeli doonaa kuguna dhibi mayna baa ilaahay guri kuguna dhibi mayno yacni wax adiga aakhiro ku dhibgeliya ummadaada kama yeeli maynaba sidaad jeceshahay inaan ummadaada u qabanno ayaan kugu qabanaynaa weeyaan waa raalligelin ilaahay uu nabigiisa raalligelinayo walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa waa raalligelin weeyaan halkii nebi muuse calayhi salaam markuu ilaahay la munaajoonayay la yidhi wamaa acjalaka can qawmika yaa muusa qaala hum ulaa'i calaa aharii wacjiltu ilayka rabbi litardaa muuse calayhi salaam inuu rabbigii raalligeliyo uu u soo degdegay laakiin nebi maxamed ilaahay siibaa ku leh walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa muuse calayhi salaam waa kii lahaa rabbi ishrax lii sadrii in risaaladda iyo diinta qalbigiisa loogu sharxo ilaahay buu weydiistay walaakiin nebi maxamed isagoon ilaahay weydiisan ayaa ilaahay ku yidhi alam nashrax laka sadrak ibraahim calayhi salaam walaa tukhzinii yowma yubcathuun yaa rabbi maalinka qiyaamaha ee dadka la soo saarayo aabbahay gaalnimadiisa haygu hoojin buu lahaa nebi maxamedna ilaahay baa ku yidhi yowma laa yukhzi allaahu nabiya waaladiina aamanuu waa maalinta ilaahay nebigiisa iyo muuminiinta ilaahay uunan hoojinayn nebi ilaahay baa nebi maxamed hortay qur-aanku waa cajiib lafdiga yaa xarfu nidaa bisiiqati nidaa kuma soo arorin balad yaa muxamed halkan qur-aanku yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'ya yaa nuuxu qad jaadaltana yaa nuuxu inahu laysa min ahlika yaa muusa inii istafaytuka cala annaas yaa ciisa bna maryam a anta qulta linnaas yaa zakariya inaa nubashiruka yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa laakiin qur-aanka yaa muxamed kuma taalo yaa ayuha alnabiyu yaa ayuha almuzammil yaa ayuha almudathir yaa ayuha alrasuulu طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم قرآنك إلهي جل وعلا تشريف ونبي الشرف يا أيها النبي كي أندورتيو يا أيها الرسول كي أنقو أندرتيو يا أيها المدثر كان ازدد يزدودوب ياسين والقرآن الحكيم وتشريف هداد مقاش قرآنك والنبي عليه الصلاة والسلام
إلهي تبارك وتعالى كن يد يسقو بحيي وأقول يديو وأشرفين إلهي نبي محمد وشرف يويان نبي قاسا إلهي أمدي سنقدقي نبي الدارين كيله نبي أمني ما كفكريا نبي عالم كأودم قنايا من مالك إلا صوص ساري إلى ساعة قيامته أي إيمان يسو واحد بشر إيمان ينبي يقولها يا جبريل أمتي أمتي يا جبريل أمتي إنك أنا ما أنت مسلمين ما أنت حالته ذاك ورم دولة بلغوك كلا قيبيي قبل بلغوك كلا قيبيي قبيل بلغوك كلا قيبيي رير بلغوك كلا قيبيي إنني أبتغي بمدح لسكو قليي الدنيا تفرق أدوية أمد ويك كلا جيسا أدوية أمد أسكو ما كانتو أمد إيمانك أسكو كانا أمد الدين أسكو كانتا أمد محبة إلهي أسكو كانتا أمد نمدا دين الإسلام كاسكو كانتو أمد نمدا ولا سوف يعطيك ربك فترضى تضرع النبي قال صلى الله تضرع عند السحر ساعدها النبي يقول انجر يا رب يا رب ويا ليت أبي بكر محور انجر يسقنا ما حيه يدي يدليس عمر بن الخطاب أورنجري ويشبرك الدولة ما النقضة وهاي الله حسابي ما يشبرك قيامة وأبو بكر يا عمر يا ليتني لم تلد أم عمر لم تلد أم عمر ويدي ما حيود ليس أبو بكر بأركجر أور ضاقيا أور كمان اسكا هذا بورنجري لا حسابي ما يسقي تضرعوا وحلق السحر كوقت السحر ساس إله لم يناجونيين قبر صالح هذا ولو رجل الرحلة العابدة رحمة الله عليها هبين جنين كذا مركي أتمادو اسكو سوق رحسو اسكو سو هجاجسو أي عشرة وديارسو أي كو رجل ياس أي كو رجل تي يا سيدي ما دي باهنته مركاس رجل ما يعاونه وندلنا واسكت جيب سنة جاية هذا يقول اسكت سيح مركاس أي فصح كقادته أي أركت ولي من نكيج إنه جمعي أي درك يروحنا بدنا أنت اسكت دكتو أي در صوف أنت حدته أقل جمال ردوش سرعي كل هاي أنت أوب حدا بأورنجرتي إلهي قد غارت النجوم يا إلهي يجيو حدقيه وأكوه ويدعنا يا بقردنا الباب دودي هوستي كحدان هبين كينا أصوم دو بعدي قف كل جعلنا السرير تدوشدو كل كليوبه يا رب أنا وأديك أكو جعلها الباب الرحمة هذا يغفر بأورنجرتي يا رب أنا وأديك أكو جعلها ليتك ترضاه والأنام غضاب وليتك تحلو والحياة مرير يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب رابعة العدوية رحمة الله عليه هبينك يدنا ساعدها دنبيك عجرتي أي أورنجرتي ليتك ترضاه والأنام غضاب يا ليت وقيقي خسارة يا ربي أدوك ما أدرى لي نقطة دا مخلوقك لك هبأي عروضان يا ربي أدوك ما دي معاناتي ومناجاتك أقوم إيه معاناته وصلاة أقوم إيه معاناته وقرآنك أقوم إيه معاناته وطاعة أقوم إيه معاناته وذكرك أقوم إيه معاناته نولا الشيء تقول هبأي قراراتي يا ربي أدو هذا أدرى لي نقطة بيتري وحان قرنا يا وحوى اللي بيني هقاقيان وحا أدوك الدولة لنا ترابنا تراب بكل نقضاي gaariga quruxda badan ee dharka maxaa laga sameeyay turaab qasriga dhisan waxa laga sameeyay turaab dharka quruxda badan leh waa turaab gabadha quruxda badan leh waa turaab ilmahaagu waa turaab lacagtaadu waa turaab cuntada macaan waa turaab wa kullu alladhi fawqa turabi turabu ya laytani kuntu turaba waxa adduunka duliya loo dhan waa turaabna waa lagu celin doonaa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum تارة أخرى بإلى هيري أيها البشر بشر كان هلا يسعدو أذيك أجندن جرك أجندن لفها أجن يضبك أجن يديك أجن يملح هذا يوسك أجن عيدا سنجس سمينا بإلى هيري عيدا نقول علينا دونا مرد من عيدا نقص صار دونا بإلى هيري إذا صح منك الود بيتري يا ربي وحنقرنا يا بيتري هذا هذيك يقرأ لنا نقطه أودي جعلاته وحيقو أتكاني نولش أدبيدا ما بجرا سرت نولش واتاس ومن يتق الله يجعل له من
amrihi yusra amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa umuurtiisa oo dhan baa ilaahay leeyahay waxaan ka dhigaynaa fuday nolosha kugu adkaan mayso qof kasta maanta warayso noloshaan fahmi lahay buu koodhan faqiirkii u tag noloshaan fahmi lahay taajirkii u tag noloshaan fahmi lahay madaxii u tag noloshaan fahmi lahay milyoneerkii u tag noloshaan fahmi lahay kii miiga joogay noloshuu fahmi laayahay kii magaalo joogay noloshuu fahmi laayahay kii afrika joogay noloshuu fahmi laayahay kii qaaradda u tallaabay qaaradaha gaalada noloshuu fahmi laayahay kii dayaxa tagay noloshuu fahmi laayahay nin baa maalin dhaweyta qiso cajiiba ii sheegay 2017kii wadanadan la isku yidhahdo G20 waddan adduunka ugu warshada badan maal qabeenadoodii baa shir waddanka Geneva leeyahay iskugu yimaadeen dhakhtarku ka aqoon badnaa caalamkana way ku casuumadeen shirkii waxay yiraahdeen raggani waa raggii adduunka ugu dhaqaalaha badnaa nin walba keligii buu diyaarada leeyahay rag waxa ku jira wadano dhan ka maal badan wadano dhan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay buu qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxa ma hayno maxay yiraahdeen raaxa ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal gelino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoonkeena bay yiraahdeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday waa dhimanaysaa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacallaa bay yiraahdeenoo dawooyin iyo isboor iyo waxbaan samaynaa bay yiraahdeen haye iyo cunto fiican iyo laakiin tan hor taagan aan habeenkii ka seexan laanahay waa mawdkii xal u keena ma keeni karaan hor ma keeni karaan ma keeni karaan ma keeni karaan sirta nolosha adduunka ninka helay maanta waa ninka ilaahay macrifadiisa helay sida rabbiga ka doonaya adigu yeel nolosha adduunyada ilaahay ba ku fudaydin ما فهمي وايس nolosha adduunyada markaas ajiib wallahi nabigeenu sallallahu alayhi wasallam meel yar buu naga tusay meel yar xadiis fi sahihayn meel yar sunan saxaabi baa nabiga u yimid oo ya rasuulallah markaan ilaahay aan baryaayo salligaaga ducadeyda markaan afar u qaybiyo qayb baan ka dhigay ka waran buu kaydi markaa buu nabigu ku yiri waa khayr hadaad ka ziyadisaase ka si khayr badan bal xadiiska dhageysta markaa saxaabiga yiri marka loo qaybiyo salligaaga qayb baa ka dhigi buu yiri labana de anna bashar baan muraadkiisa ilaahay u sheegan markaa buu nabigu waa khayr fa in zidta fa huwa khayrun laka hadaad biirisana kaga si khayr badan markaas yiri saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaaga ka dhigi midna ana baahidayda ilaahay u sheegan waa khayr buu nabigu ku yiri hadaad ka ziyadisaase kaaga khayr badan hadana wuxuu yiri sidaas markaas uu saxaabigi yaabo wuxuu yiri haduu arinku sidaaba yahayba ducadeydii dhanayd ba intuu halkaas iska dhigo ayaa salligaaga ku bilaabay salligaagana ku dhameyn markaa buu nabigu ku yiri idan tukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka bukaydi hadii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhanayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dambigaagina waa la dhaafay rasuulku kaydi sirta nolosha ma tahay sama halkaas laakiin indhihi lagu arkay Allah nasiyo indhihi khayrka lagu arkayay ee quraanka lagu arkayay ee salliga nabiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nabiga nasiyo lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga Allah inoo furo waxa uu nabigu ninka ugu jawaabay bal dhageyso
haddii ducadaadii dhannayd aad salligayga ku soo koobtid adduunkan dusheeda wixii hammi humuum aad lahayd hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata uu xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba wada heshay buu rasuulku ka yidhi aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyo ilaahay waxa ka cabsi qaba waa maxay muxuu ka cabsi qaba waa dembigina waa laga dhaafay buu rasuulku yidhi waa salligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halkaa ku jirto ee sirtii aakhiraba adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhagaysto waa niigu celine waa mashkilad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid ku qumisa aad doonaysid ilaahay baa kuu daboolay mashaakilkiina ilaahay baa kaa faydi xaajadaadina ilaahay baa kuu qumin aakhirada hamiga ugu weynee qofka muslimka hor yaalla uu qof walba ka baqayana waa maxay waa dembigiina waa laga dhaafay rasuulku yidhi waa salliga nabiga fanuksir nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam salligiisaan badinaynaa salligiisu waa munaajaat culammada islaamka qaar waxay idhahdaan ma dikriga ilaahay la xusaaya fadli badan mise salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qaadi cayaad raximahullah fii kitaabi shifa bitacriifi xuquuqi lmustafa wuxuu ku sheegay salligaa la isku raacay inuu fadli badan yahay ma daliilu calaa dalika baa lagu yidhi waxay yidhahdeen culimmadii fuqahada ahay ee ilaahay nuuraaniyadda uu siiyey subxaana allah markaad tidhahdid buu nebigu yidhi geed baa jannada lagaaga beeraa alxamdulilah markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa laa ilaha illa allah markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa allahu akbar markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa walaakiin salliga nebiga u soo noqo man sallaa calaya salaatan waaxida sala allahu calayhi biha 10 maraat ninka aniga mar igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariis iyo darajad ii weydiiya isagana 10 jeer buu ilaahay u naxariistaa geed jannada lagaaga beeray iyo 10 jeer oo ilaahay ku naxariistay ka fadli badan lidalika nukthir salawaat an-nabi alayhi salatu wassalam wa ina salliga nabigeena badina wa ina munaajaat saacadaha dambeyn ilaahay la munaajoonayno wa ina nabigeena ku sallina alayhi salatu wassalam wa ina wixii nabigeena ku weyna inagana wana nagu weynaadaan saalixiinta la fadhigooga iyo soonka in la laazimo sifaadkaasi qofku hadduu ku dadaalo bay culimmadu leeyihiin biidni illaahi tacaala qalbigiisu uu nuuri ومجالسة الصالحين dadka war wanaagsano la fadhiiso culimada la fadhiiso oo xalaqaadka ka qayb gal oo jamaacada ilaahay dartu u socday maalkooda naftooda bixinay diinta ku bixinaya ayay la fadhiisanayaan masaajid bay fadhiisanayaan masjid bay jamaaca ku tukanayaan masjid bay umada ugu yeedhayaan masjid bay ku i'tikaafayaan afar bilo marka jamaacada kharijiintu ay baxaan dacwada u baxaan masaajid sida loo amray soo baranayaan umada masjidka ku soo xidhayaan iyagii masjid bay ku xidhmayaan bixidan la baxayo muddada ha eegine muhiimada loo baxay horta eeg dad saalixiin raacaysa saalixiina la nuzaki ala allah ahad laakiin dad ku soo talagalay inay naftooda islaahiyaan walaalahoodna ay soo baraarujiyaan masaajida mahjuurka ee maanta umadu ay ka hijrootay in masaajida ay camiraan wallahi jamaacada waxaad arkaysaa tuulooyinka markay ku baxaan masaajida qaarkood digada ariga iyaga ka xaara bari tuulo aan tagnay masaajidkii markaan tagnay imaamkii masjidka sida ilmaha yar marka la yiraahdo iskuulka dugsiga waa lagu fasaxay oo 7 cisho ciyaalka la fasaxay marka la yiraahdo sidoo ilmuhu u farxo ama imtixaankii baad baastay marka la yiraahdo sidoo u farxo ayuu markuu arkay ninkii sheekh uu farxay oo ka caafadhiistay waa tuulo yar markaasuu jamaacada shaah u soo kariyay biyo u keenay maalintaan ka guuraynay tuuladiina si la yiri ilma yar la yiri hooyadaaba ka dhimatay buu ooyay waa ka tagi kar weyn sheekh maxamed loo yeesa lilma ka daadanaysa wuxuu miskiinkeennii uu doona buu yiri saddexda cishadii la joogteen salaada jamci baad amirteen dadkii baad miskiinka ku soo xidheen xalaqadii baad asaasteen taariku salaadii baad miskiinka soo galoon anigu aan keeni kari waayay masaajidkeennii uu doona buu yiri haddaan awood yeelan lahaa maanta halkaasaan nagu dhixrin lahaa buu yiri yaa muslim jamaacada kharijiinta dacwada alxamdulillah inagu waad inaad dhagaysataan baad u timaadeen laakiin culimada waxaan ku yidhi warnimo yahow berigi hore Soomaalidu oran jirtay wadaad wacdiyay waxisi baa xigta wadaad tabliiq hadduu masjidka wacdiyana waxa xigta ayaa ilaahay dartu u baxay
تاوات كنا حسابنا ملايين يا بحتان كاسيات بدو كنا حسان بس كده في أمريكا من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي ولهم هل كابو كيمة بحتان كان قفك لقد البايو إنه قفك إلهي دينجي سوقر قارو ما هو وح مستحدث إنك هلا كيني بل هو شيء منصوص ويان من بداية الأمر ونبيك كبل أبي قريش وقالاء أو مشركين ونبيك انتو دول جوكسو كلها أيا يسود ويسنا أيا إيجر قارو قعان السين رسالة الرب إلى صوصاري ومدى هنقارسيون جل وقو بلغ هذا فبس النضوض حج الجاهلية قريش مركي عربتو أي جاهلية حشك إيمان جرتي ابن عباس فبس النضوض النبي عليه الصلاة والسلام حجيدا جاهلية دا من السو حجيدا سو دكتي أيو النبي قصد أود الوريق جريول هيا إي سو دوين هيا إي كالمين هيا إي غرغاري أو دلقيسي جيسن أو رسالة الرب إلى الصو ساري إلى فيدين أو جنة وقو بلن قادا مركاسي قبائل كقاركود كو أورنجرين أو عشيرة هذه هالكي كاجوغا داد هرتو ديكا إبنية بأورنجرين داد هرتو داد هرتي يكا بإبنية marka maalintaas nabigu umada ka dalbay diinta in loo gargaaro waka quraankan ilaahay noogu sheegay nabi ciisa falamma ahassa ciisa minhum alkuf mu'yiri qala man ansari ila allah hadii nabi ciisa alayhi salam xawaariyiintii isaga la socotay oo ka dalbay ayaa diinta ilaahay u gargaaray haduu yaka ka dalbay baa la yiri umada nabi maxamed diinta inay ka shaqayso oo diinta u gargaartana ilaahay ba ka dalbay يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله مركز جماعة هذا خارجين تا أفرد بلوب بحيان أفرتم بحيان مددها إيجني مهمة ده بحيان إيج والله ثم والله نفتو ذين إصلاحيان بحيان إن علماء ذي علم يتوجع على ذنب بحيان إن صلاة يسوع حفظان بحيان إن ولالكوا مسلم كده ضيعان قعنت يسوع قبطان ومساجد السوق اليوم بحيان وعن حسوس دوري تمسنا كهر جماعة مقالة كبحضي مقالة دي مركي كبحين دادكي ويدا قيستين وين لي يابين وعيد هذا ور إنكو دادكي وناكسنا إيه مساجد عمر يباتهيني دادك حافظا دقين يا صلاة دا آننتو كن بل مد قادوا جماعة دا أقيا لأن أضيا يري أضي درس كيقا أو تدبات جرة وولي صلاة آن سوقلين وخمرقنا آن هبيني مالنو كالسارين أيا إلى الدرسين hadduu igu kiin hadduu arkaano inila socdana dhibba ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyo marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo sabab hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay دوري تدبات الجر صار برقرية ويكفر إسلام الباب كبر وكفري إلى جماعة النهي مساجد كان كاسو بغني وكسو زيارة الني ها مزيارة ها زيارة دوانا قانا يوكادي يقولي قل كيف كنا قد العقر بصوق هذا زيارة دي وحمودة يقول هذه الطريقة ده صوفية دبري قول رأى وزيارة دي شكله كان أورنج تيم كوس كذا ما تانو مالين بقى أنا حقيقة جيبوتي تيم كوس كذا ما تحقي نمويان يا إذا الزيارة ده واحد سكوب بدي شيء إلى هدرت وقف كلور زيارة نيا هو واحد بدي شيء إلى هدرت ما كون صوب وقنا كون صور زيارة نيا واحد ديانا كوم سنو واحد ديانا كوم كام دون إنه خير كجماعة كير دقيسان وده دقيسان نيا كاسو يا ورد العقد ديدا مركز العقد مقاضنه الولي إنسان الله هي وقف العقد ديدا ويكوي محاتهين ما أنكوا هذا العقد مقاضنه لكن وقتك ضدك كقاضنا وقتك labaatan midhin ma nasiin kartaa soo fariista waxa lacagdiida maana ba arkay buu la yaab ay ku noqotay mo khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraadana ku jamaacad waxaan martiya magaalada Hiblaayan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan may ma qaadano oo lacagta ayay naga bixiya bil maali wal nafs
bilmaali naftayadii maalkaygan ku soo baxnay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisii aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedihiin weligay ma maqal buu yidhi weligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buu yidhi maxaad iga rabtaan adar ii sheeg lacag waad igu diideen oo wax kale sheegta waxaa kaa rabnaa annagu laba qofaan nahay amiirkii iyo jamaacaddii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacadda u tagto waad soo salaantid bas intaasaan kaa rabnaa ma intaa usuhaa waa niraaci dharkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii buu kaga yimid quradii la socdo mashaahidkii buu jamacadda u soo raacay wuxuu yidhi salaad ma aqaano waxaa la waxba male iska weysayso weyse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeya u samee salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo suu rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyey ayay liin yar iyo muus yar iyo shaah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiqii miskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyey yaa soo gashay la in yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam cali nebigu markuu hadalka ku lahaa dagaal buu u diray dagaal khaybar buu nebigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nebigu ka daba hadlo wuxuu yidhi cali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi ilaa sideeda ay ka noqonayaan markaa buu nebigu cali dhegaysa buu ka yidhi mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakoonan lala dagaalamin ay diintii kaa dhegaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanaya ogow dacwa muqadam calaa kulli shay dacwaddaa ka horraysa wax walba jamaacaddii waxay idhahdeen war annagu ma soo geline ilaahay baa soo geliyey daaya salaadii maqrib buu la tukaday bayaankii buu la dhegaystay cishaa'igii buu la tukaday cishaa'igii intay soo kaxay bay miskiidkii keenaan haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socda miskiidka soo galay 7 maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhex baxay tiisii baa timidoo ilaahay waa ka manna qaatay وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها وفي حديث النبي يقولها انت تاكين لك مركي النار توقعدو أيا إلهي جل وعلا قدرك هرقو قرنا أيا الله هرمرين دانا أعماش الجنة الله وعين تضوان مع الموضوع عبادة استي صدابا للرجل إلهي جنين وكو قليل لأن خاتمات بإله هباج حسن الخاتمة وشيء غالية أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ذا قال هذا شيء أي الله نوشة إن مسلم أو صومالية لكن ماشي الجنوب حجري 40 كيلومتر وأبو قناي إن أضيع الدادي ساكوك يا سندوري اللي حدا جر مركز ويا جماعة هالك كتير حقا يضل كيوان كيمان محاولت ما دين ضد كمسلمين هنا سووا زيارة بس شيء وخرج كيان نقبل حيا بالمال والنفس وفيزا ودن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادي من أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دونا سانينك ده جماعة دي مسكيت كاسي جوغان لأن أنا رعلان دونين تانو مسكيت حد ما تقابل حد معلومة كلنا صلاة دايدن إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما جوغتان واحدة ها واني مقبولي ذلك الصوماليا وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو غسينا صوماليا اسلام نمدا نسعنا وموقته صوما افكا صومالي وحسينيا هي نمري شو نو يمد maalintii dambe baan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii istuhudeen dadka Soomaalidu markii istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas warmarkii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtaa oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa weey ilaaga bahin duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadeedu waa galab
marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaasuu yiri may professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 عمر الغالب كأمة يدبو النبي يقولي وتضباطني لحظة أنت أود حيسا أذكر واحد لا دوري لحظة جربانة هاي أنت تسين لندن تابو كيدي صلاة يدين واحد لا وقلب قلب حرير كأذي له نقد حيانا وضعيف كون وحكود جنا وحات الحرير كما بيقانان سدي كرة هايبو كيدي أو عقل جاجي رشد جاجي هذا الكثير والبصير يا جماعة دوتشري لكن منكي حبيك عشاء بركوتو كذا قريق يسيبو تجي صلاة دي فجر يسقو علابتي وتو جماعة دوي مدي وعود هذا الكاد يقول ترى هذا محل كسيحن كروايين هذا الكاد يقول ترى هذا وانكجيب سكر وايين داعية مركون نقول ضد وناكسن الراعو ومد خير ورجينا يو ومد وناك كفي كريو هذا القيس إلهي وحوق لنا يا تأثير سامين بو هذا الكاد ويا لنا يا هذا سوء إصلاحها يا ومدنا إصلاحك كسوق قيب هذا نيسان قيلة عن قيل إنه كبد بعد إنه ينا الدين تكوّد الشقين ودن يود إن شاء الله وهذه لنا قد البين الدين تأبحنا أبحنا وإذا استنفرتم فانفروا بنبيوري هبيك الجماعة هنا مركز كسوة قريب قال كلن كدينات بفضل الله عز وجل هبيك كده وتجمعه بان وفي رصدوا مساعد أبو حسام يا بهديت ولا زماننا تعود واحد صومر تحلها جماعة المسجد كمركز كتها قال لك كلا يا عجري ما أنتنا دعوة واحد مريسا إن مراكزتي هالكا يجوك ستافك واجتماعيتي مركلي هالكا ما لقوا قبل لا بس أنا كدي ماشي يراتي ما الكلام لو جوري ماشي هو يراتي هذا أنا كجيبوتي واحد مرينا ماشي صدحات اجتماعي هو الرئيس سياشني الله بدي لما بقول قفا كسو قيب قشي طبعا سنة اجتماعي مسجد مركل لقوا قبتي مقالة دحدا حرنتي مسجد كله وين بيت دولته كده ياخذ الدعوة دي هذا أنا كينا أول حرمي كينا ولا قبحي برنامج مقالة الله بحي برنامج مقالة السنة كان أفرتن كونوا غفا كسوقا وش اجتماعي أفرتن كونوا غف هرجع سنة ودكتهين والخير كابع نوبة حيا خير كما قدر صنع خير هذا ده دقي استدين هذا وناكسن نقو شغال الدين هذا وناكسن بكسي في عن الله إنه قام الله إنه دم داف وصلى الله على سيدنا